Bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Walaalahayga qaaliga ah waa idin salaamay meel walba oo caalamka aad ka joogtaan iyo sidaad u dhan tihiin. Waa walaashin xayaado idinle mar kale iyo kulanti wanaagsan isku soo noqoda wacan. Sidaad u idishiin waxaan idin rajeynayaa nabad iyo caafimaad biidnillaahi alkariim axbaabi insha Allah. Maanta waxaan rabaa in aan idinla qaybsado kitchen update jikada oo wax yar oo aan ku sameeyay dib u haween ama wax yar aan kusoo kordhiyay insha Allah ama wax aan ka bedelay sidii aan ka bedelay iyo waxaan rabaa sidii markii dambaba noqotay in aan idinla qaybsado insha Allah waana ka faa'iidi doontaan biidnillaahi alkariim. Walaalahayga qaaliga ah kusoo dhawow channelkayga haddaad ku cusub tahay gacmo furan iyo qalbi saafi ayaan ku leeyahay mar walba. Fadlan subscribe saar si aad noola socotid gambaleelka furo isla mar ahaanta aad ayaad u mahadsantahay jazakallah khayr ayaan ku leeyahay walaal qaali. Haddana sidaad arkaysaan kushiinkii ama kitchenkeeni waa kana ama jikadii sidaad arkaysaanba warqada ayaa kusoo dhajiyay oo waxa waaye warqad waterproof ah oo darbiyada loogu talagalay dabka waxba kama dhibaayo sidoo kale haddii kaa qoydo biyaha waxba kama dhibeyso oo biyaha way iska celinaysaa ma ahan xaashi kaa go'eysa gadaal ayaan idinka tusi doonaa biidnillaahi alkariim. haddaad muuqaalka daawataan waad arki doontaan insha Allah sida ay tahay warqada darbiga aan ku dhajiyay maasha Allah siduu kusoo baxay kushiinkeeni waad arkaysaa isbedel aad u weyn ayaa ka muuqda oo aad ayay u qurxisay insha Allah. waxyaabo kalena way ii dhiman yihiin oo in aan ku sameeyo hadduu rabbiga awoodda lehna waan idinla soo qaybsanaya insha Allah. halka jikada waxaa ii yaala ama ii saaran falaawaro yaryar aad arkaysaan ani mastali ma jeclin aan meesha daaqada aan saaro alaab tiro badan just inay nifaas ii ahaato ayaan jeclahay nafis ahaato qaadooyinka yar ayaa ii saaran iyo 3 falaawar sidaad arkaysaan. halka kalena waxaa ii yaalay waa ujeedaan indiin ayaad ku arkaysaan ayaan filayaa. intana fridge ayaa ii yaala ama filinjeerka hadba saad u taqaanaan iyo geedka yar cagaaran aadka u quruxda badan cookerkii iyo microwave-ki isagana way isku dhowyiin oo jikadeeda aad ayay u yartahay waxa waaye jiko iska cariiri ah maadaama guriga aniga aan lahayn waxba kama bedeli karo oo xitaa armaajooyin oo igu filan ma ahan hal armaajo 2 armaajo oo kaliya ayay leedahay oo hal xabo isku ah oo 2 qaanadood kala ah oo marka qaanado badan malaha sidaad arkaysaan. marka waxa waaye maadaama adiga guriga aad lahayn kira uu yahay waxa waaye waxba kuma darsan kartid oo haddii aad isdhahdid ku sameyso oo kuma sameysan kartid because milkiyadiisa adiga ma lihid just inuu siduu yahay aad iskaga qurqurxisatid lama ogiyo wax dheeri ah kuma dari karaysid insha Allah. marka qof walba uu garanaya ayaan filayaa walaalahayga qaaliga ah. halkan qadadii ayaa ii taala qadadeeda meel kaloo dhiga ma lahan meeshan ayaa ay ku habboon tahay in aan dhigo sidaad arkaysaanba jikada open waaye sida hadda kahor idin sheegay. meeshaas kaarbad yar ayaa ii yaalo dhexda jikada ama kushiinka sidaad arkaysaanba just waxa waaye alaabteeda silver iyo grey sidaad arkaysaan aniga alaabta silfarka ayaan jeclahay ama qalinka ah aad ayay u qurux badan tahay wayna dhalaalaysaa maasha Allah maalinba maalinta ka dambeyso dhalaal ayay kasii qaadaysaa markii aad masaxdid maasha Allah. walaalahayga qaaliga sidaad arkaysaanba jikadeeda waxa waaye jiko iska kooban alaab badanna ima taalo maadaama ay kooban tahay ma jecli alaab badan in aan dhigo intan ayaaba hadda igu badan sidaad arkaysaanba walaalahayga qaaliga ah. marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan muuqaalkayga maanta biidnillaahi alkariim. wixii aad su'aalo aad qabtaanna waad isoo weydiin karaysaan insha Allah biidnillaahi alkariim. marka waxaan kaa codsanayaa walaal qaali haddaad igu cusub tahay kusoo dhawow channelkayga subscribe inoo saar si aad noola socotidna gambaleelka furo aad ayaad u mahadsantihiin mar walbo iyo meel walbo caalamka aad ka joogtaan ayaan idin leeyahay walaalahayga qaaliga ah. waad arkaysaan ayaan filayaa sidee noqotay. haddana waxaan idin tusi doonaa goordhow sidii markii hore ee ahayd kushiinkayga insha Allah iyo labada marna kii qurux badan waa soo sheegi doontaan meesha commentiga ayaa igu soo qori doontaan hadduu rabbiga awooda leh. saamaxaani koley hadda sidan ayaa ila qurux badan insha Allah. meesha hoosane oo top counterka waxaan rabaa isagan in aan bedelo
waad ila socon doontaan maalinta aan bedelayana waan idin tusi doonaa sidoo kale insha Allah sida aan ka dhigayo. Hadda waxa waaye warqadda aan derbiga ku dhajiyay dark grey iyo white waaye, meesha kore ee jikadana black waaye ama madow. soo marka aniga hadda waxay la tahay inaan isku soo bixinin insha Allah madowgaas ayaan ka bedeli doonaa biidnillaahi alkariim. wixii aan sameyn doonana waad ila socon doontiin insha Allah fiidiyoyada dambe biidnillaahi alkariim. insha Allah waad arkaysaan guntii gabagabadii waatana walaaleyga qaaliga ah sidan ayay ku soo baxday. halkan firinjeerka ayaa ii yaalo sidaad arkaysaanba. meesha qadada iyo meesha yacni fridge-ka way isku dhow yihiin oo wax saas yacni uma dhaxeeyo. space-ka guriga ayaa aad igu yar soo marka waxa waaye iska ciriiri. marka walaaleyga qaaliga ah adduunya fil basar aakhirana waxa waaye camalkaaga adduunyada yacni meesha markaa ku nooshahay iska basriso. insha Allah ha yaraato ha weynaato just nadaafada un ku dadaal. wixii aa haysatidna ha habeeso insha Allah ilaahayna ugu mahad celi isaga ayaa ku siyaadin doona insha Allah. inta aa haysana Rabbi subxaanahu wa ta'aala ha siiyo. meesha waxaa iigu xiran nal ama light sidaad arkaysaan. lightka kuma yaala meesha yacni miiska qadada wax yar wuu kasoo yara durugsan yahay laakiin waxaa qurux badnaan lahayd ama fiicnaan lahayd inuu ku yaala miiska korkiisa diningka ama qadada miiska qadada dushiisa inuu ku yaala ayaa qurux badnaan lahayd. anyway hadda halkaas ayuu ku yaala dhima lahaan soo marka hadda inta waxa ii yaala waad arkaysaan waxa yacni idin sheegaya ma ahan indhihiina ayaa uga jeedaan walaaleyga qaaliga ah. soo marka insha Allah haddana waxaan idin tusi doonaa goordhow biidnillaahi alkariim warqadda insha Allah aan ku dhajiyay online-ka ayaa ka dalbaday oo waxaan kasoo iibsaday online-ka page-kooda Instagram-ka ay ku leeyihiin. soo marka meel walba waa ka helaysaa adiga haddii aad rabtid meelaha carwooyinka ee guryaha alaabaha lagu sharaxo lagu iibiyo halka ayaa ka doonan kartaa insha Allah. jikadayni hadda waatana markii hore aan bilaabayay after sidan ayay ahayd beforena waad soo aragteen sida ay noqotay. marka insha Allah walaalahayga qaaliga ah hadda hawsheeni ayaa bilaaban doonaa hadduu rabbiga awooda leh ii saamaxo. kuukarka ayaa meesha kasoo jiidi doonaa waan kasoo leexiyay hadda sidaad arkaysaan oo waan kasoo qaaday. kuukarka weli korontada yacni kuma aan rakibin oo korontada in aan ku rakibo ayaa ii dhiman insha Allah maadaama gurigan aan mar dhow soo degay. soo marka weli wallaahi maba ku talaalin korontada insha Allah laakiin waan ku talaali doonaa hadduu rabbiga awooda leh saamaxo. walaaleyga qaaliga ah warqadda waatana sidaad arkaysaanba waan idin tusayaa. koolo yar ayay gadaal ku dhegan tahay oo uma baahnid inaad koolo ku dhajisid. haddana walaalahayga qaaliga ah intan ayaan soo cabirtay oo waxa waaye mar walbo meesha aad ku dhajinaysid cabirkeeda ayaad soo qaadanaysaa warqadda un ayaad ku cabiraysaa. intaa dabadeed waxa waaye cabirkii adoo wata ayaad soo qaadanaysaa maqas kadibna maqaskii ayaad intii aad soo cabirtay ayaad ku jaranaysaa. sida aad arkayseen baani hadda aan sameynayo waxaad u baahan tahay maqas iyo kaar yar oo aad yacni hawada ama naqaska aad kaga saartid warqadda markii aad derbiga ku dhajinaysid oo waayo looma baahno in ay hawo ka gasho derbiga iyo warqadda laba dhexdooda. marka intaa dabadeed sidaad arkaysaan hadda derbiga ayaan ku dhajinayaa walaaleyga qaaliga ah xaashidii ama warqadeeni uma baahnid wax koole in aad marisid waayo iyada ayaa koolo ama xabag gadaal ku leh just waxa waaye xaashida dambe un ayaad ka fiiqaysaa kadibna derbiga ayaad ku dhajinaysaa. midan ayaan idin tusayaa sidaad arkaysaan baxaanshida ayaa gadaal ku taalo kadibna kaarka ayaa sidaa ku dhehaysa si hawada ama naqaska ay uga baxdo. marka insha Allah walaaleyga sida ayaan kusoo wadaya isla socod wanaagsan ayaan idin leeyahay. maanta dhan ma wadi karo hadalka insha Allah iska daawada inta dhiman biidnillaahi alkariim sida kusoo baxdana waad ila socon doontaan hadduu rabbiga awooda leh inuu wada saamaxo insha Allah.